السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashan roode cilmi oo mar labaad soo duubisa video ku saabsan alaabadeena videoga hore waxaanu kaga soo hadalnay alaabteenu inta waxay u kala baxdo maadaamay tiro badan tahay baraan kasta halka laga helo iyo sida loo eego ayaynu ka hadalnay videoga waxaanu ka hadlaynaa baraanadeenu waxa ay taraan ama faa'iidooyinka ay leeyihiin inagoo aan ku dheeraanaynin si aad uga caawiso qof kasto macmiila oo maaragtay kusoo weydiiya alaabada waxa ay tahay waa inagii soo sheegnay halka laga helo alaabooyinkeena marka aad pagekeena hoos u socotid ayaa waxaad ka tegaysaa meesha ay ku qoran tahay brand directory sababtan waxa weeyaan wax kale maahay maadaama alaabo cusub markasta ay soo biirayso waxa qurxoon inuu qofku halkan kala socdo si uu alaabtii soo biirtay uga warhayo baraanada oo dhan ayaynu ka bilaabaynaa si u kala horeeyaan baynu ku bilaabaynaa brandkeena la yidhaahdo daily 100 wuxuu ka kooban yahay halka fitamiin fitamiinkani waxa weeyaan mid loogu talagalay in loo qaato waa powder ama waa budo oo la qasanayo biyo lagu qasanaya qof markuu isticmaalayo wuxuu ku shubanayaa biyo ayuu ku qasayaa biyaha markuu ku qasto saasuu ku cabayaa faa'iidadiisaas ku helayaa maxaa ku jira oo kamid ah waxaa kamid ah barodhaga haddaynu eegno 13 fitamiin iyo minerals oo qofka jirkiisa u baahan yahay ayaa kamid ah marka aad beejkiisa aad home tagto ayaad ogaanaysaa waxa uu yahay iyo waxa uu ka kooban yahay haddii uu qofku doonayo inuu iibsadana shub ayuu dhahayaa marka uu shub dhaho oo uu yimaado beejkii laga helayay 100 daily waxa uu sii arkayaa faa'iidooyinkiisii isticmaalkiisii wixii ku jira ingredientskiisa oo dhani waa kuwan fitamiinaadkii marka kaas waxa weeyaan product 100 waxa inuugu xigaynu ku xigsiinaynaa akashagas buu ahaa akashagas waxa weeyaan waa mid digital ah alaabadeena waxay kamid tahay digitalka ah waxa uu kamid yahay travelka iyo isagii icon bordhagyada maaragtay aan la taaban karin ee laakiin digitalka ee wax laga faa'iidi karo waana barnaamijkeena hadda aadka u caanka ah kaashagas ee cryptocurrency-ga forex-ka qofku hadduu xubin ka noqdo iibsado waxa uu noqonayaa qof suuqa fahma hadhow toolana ka faa'iidaysta suuqa cryptocurrency-ga forex-ka waxyaalahaas una baranayo waxaan leenahay macallimiin 3 macallin oo ina bara oo tababara xalaaqaad baa soo gala every habeen ama every maalin waxa socda oo soo gala maalin kasta iyo habeen kasta barnaamijyo ku saabsan uun tradingka iyo suuqa oo qofka koolasha loo wacayo oo ardayda la barayo sida ay u samaysan lahaayeen tradingka ay doonayaan qofka xubinka noqonaya marka xubinnimada halkaas ayuu ka dooranaya ka mid noqonaya akaashagas raba inuu suuqan ka faa'iidaysto waxay noogu xiga brandkeena Beyond isaga brandkeena Beyond wuxuu ka kooban yahay chocolate iyo wuxuu ka koobnayo Extreme chocolatekan hadda suuqa ma yaalo oo uu ka baxay laakiin waxaa ku jira Kenny energy-ga ahaa oo laba nooc laba flavor ah haddii aynu products aadno oo aynu tagno waxa loo isticmaalaa bahalkan waa energy weeyaan waxa uu leeyahay laba flavor Extreme-ku marka aad iibsanayso wuxuu u kala baxaa mid 30 xabba ah waxa weeyaan labada flavor mid waa crisp apple ay ku qoran tahay iyo wild berry weeyaan oo pink drinkiga ku caan ah 30 xab ayaa bacdi kasta ku jira 30ka xab maalintii xabad baad isticmaalaysaa ama laba kolba saad adigu jeceshahay energy-gu kaa caawinaya qofka tamar doonaya tamartu ka caawinaya qofka maaragtay doonaya inuu waxoogaa miisaanka iska rido miisaan dhimis buu leeyahay halkan waxaad ka ogaanaysaa alaabada wixii laga sameeyey isticmaalkeeda waa product sheet alaabadana qaar baa product sheet wata marka qofka doonaya macmiil waad la wadaagaysaa insha allah si uu u fahmo uu akhriyo waxa inuugu xiga brandkeena kale ee loo yaqaano Beyond waxa kusii xiga brand directory waan kusoo laabtay body melt isagu alaabo wuxuu ka kooban yahay waxoogaa yaro tiro badan ashyaa tiro badan buu ka kooban yahay haddaynu aadno qaybta productska waxaynu arkaynaa packagekii miisaanka lagu dhimayo weeyaan qofka doonaya wuxuu qaadanayaa packagedan waxay ku haynayaan bil amaba ka badan ayay ku haynayaan qofka doonaya wuxuu qaadanayaa packageka bilka ah kalabada bilooda qof kasta wixii anfaca waxa uu ka kooban yahay haddaba proteinkii powderkii la qasanayay oo lagu shiidanayay ama smoothigaaga aad ku darsanaysay 20 gram of protein ayaa ku jira waa laba flavor buu leeyahay chocolate iyo vanilla qofka doonaya markaa kolba ka u jecel yahay u dalbanaya kani waxa weeyaan collagenkii isaguna oo loo qaato inuu jirka ururka iyo jacdadkii waxa ka bi'iyo oo run ahaantii jirka tirnaantiisa ka qayb qaata waana wax muhiim u loo baahan yahay wuxuu ku yimaadaa bogosyadan bogos kasta 10 xaba ayaa ku jira qofka doonaya bogos buu gadanaya laba buu gadanaya saddex buu gadanaya qof kasta intii maaragtay anfacaysa waxaana ku jirta dhalada yaryar oo 10 xaba ah bogos kasta ku jirta maalintii hal dhala ayuu qofku qaadanaya qofka doonaya markaa body melt inuu barnaamijka wada gato labadan protein waxaa lagu darsanayaa tan oo ah tii greenskii superfood green blend loo yaqaano oo iyadu kaa caawinaysa waxyaalihii greenka qofka u baahnaa oo dhan jirkiisa uu ka helayo tani waxa weeyaan tii iyadana u fiicnayd gadka ama micro waxaa la dhahaa prebiotics baa ku jira run ahaantii aad buu fiican tahay tani waxa weeyaan tii baruurta gubaysay qoreecda kadib markuu qofku qoreecda cuno ayuu qaadanaya tanna waxaa la dhahaa detox habeenkii markuu casheeyo uu sii seexanaya ayuu qaadanaya qofka doonaya beach uu aadaya halkaasuu ka gadanaya mid kasta uu ku dhufsanaya waxa uu leeyahay iyaduna product sheet bay leedahay mid kastoo alaabadeena ka mid ah ayaa ku qoran body melt waxa hoos yimaada oo dhan sheetkan ay ku qoran yihiin 7 page weeyaan qofka u baahan waad la wadaagaysaa waxa ay ka kooban tahay waxa laga sameeyay qaabka loo isticmaalo oo dhan ba halka ku yaala
waxaynu ku laabananaa brand directorygeenii ayaynu tegaynaa. waxa inoogu xiga cosmecology baa inoogu xiga. iyadana cosmecology waxa weeyaan qeybta makeupka iyo skin carekeena weeyaan. waa clean makeup iyo skin care oo weliba European standard ah. micnaheedu waxa weeyaan wixii qashinaha iyo alcohol iyo waxa laga saaray maxaan dhahayay filleriska loo yaqaanay ee dadka u keenaya wejigooda inuu damage soo gaaro. labada uu ka kooban yahay cosmecology-gani waxa weeyaan skin care-ko bundle-kan isku dhammaystiran ama bushqadan dhammaystirana iyo makeup-ka bushqadan dhammaystirana oo ay shaadhowdii wax kasta wadata. kani qeybtani waa qeyb makeupka ka mid ah oo cosmecology-gana makeupka ka mid ah. marka aad kusii dhifato bundle-kan qofka doonaya halkan uu kasii dooranaya inta waxay yihiin. waa kii wejiga lagu dhaqanayay, kii habeenkii, kii maalintii, indhaha hoostooda kii la marsanayay, intaba wuu leeyahay. qofka macaamilka markaad la wadaagayso waa inaad u sheegto mid kasta waxa uu taro. halkaas ayay ku yaalaan oo ay ku qoran yihiin. sidoo kale makeupka ayaduna waxa uu leeyahay isaguna product sheet buu leeyahay. marka aad mid kamida ku dhufsato product sheetka ayuu ku hoos geynaya. haddaan foundation kale hadda ku dhufsado oon hoos u socdo foundationka mid kasta halkan ayuu kasoo baxayaa noocii uu ahaa ama qof kasta noocii uu qaadanayay ee jirkiisa naasibayay. hadduu jirkaagu yahay qof maaragtay cad ama qof madow qofku doona waxa aa noqday halkan ayuu ku qoran yahay. shiidka halkan ku yaalana macmiilka waad la wadaagaysaa. waxa aad tusaysaa inta nooca u kala baxo shade oo u kala baxo makeupkeenu waa halkaa ku qoran. hadday tahay concealerkii, hadday tahay foundationkii, hadday tahay everything oo maaragtay shade leh oo la kala dooranaya halkan ayuu qofku ka dooranaya. marka shiidkaas ayaad la wadaagaysaa qof kasta macmiil ah. waxa inoogu xiga baraankeena cosmecology oo inaan ka hadlaynaa insha Allah daily sprayada. waxa weyn baraan aad loo jecel yahay oo dadku aad u isticmaalaan oo waxyaalo badan oo kala duwan ka kooban. waxa weyn waa fitamiinaad oo spray ah oo lasoo fududeeyay isticmaalkooduna fudud yahay. carabka hoostiisa ayaad ku buufinaysaa. ayagoo bandal ama bushqada ayaad heli kartaa oo 8 xabo ah. ayagoo 20 xabo ayaad heli kartaa. aslan waxay ka kooban yihiin 11 xabo oo kala nooc oo kala duwan. haddii aad eegto haddana waa tii hurdada loo qaadanayay sleep weeyaan. waana isku wada qiimo dhammaantood. qofka hurdada ku yartay baa lala wadaagayaa. tanoo kale waxa weeye multivitamin qofka ka caawinaysa inuu maaragta iska celiyo wixii environmentka toxic ku jiray immuunkiisana kor u qaadaysa. shiil waxa loogu bixiyo waa saas inay qofka maaragta wax ka difaacdo. tanoo kale passion waxa weeye dadka lamaanaha baa loogu talagalay inay isticmaalaan. libidada ayay kordhisaa ama kor u qaadaa. peak waxa weeyaan tii jimicsiga dadka doonayna jimkii meelaha aadan ba isticmaala iyadana ee enerjigooda raba in aanay kala joogsanin. brain waxaa loogu talagalay qofka maaragta ama iluushiya iska yara leh ama maskaxdiisu isku buuqsan tahay in ay kala dejiso. tan boost ayaduna waa energy. tanoo kale ma aha laakiin waa energy kale oo ayaduna dabiiciya oo qofku qaadanayo. tan marka waxa weeyaan nooca loo isticmaalo miisaan dhimista trim 365 core kilo iyo easel tan la dhaho. saddexdaasi waxaa loo yaqaanaa fat blaster kit. waaba saddexda miisaanka la isaga rido run ahaantii aad u fiican yihiin. waxa weeyaan saddex aan laga hadli karin qof kastoo isticmaalay wuu ogyahay. tan u dhexaysana beauty ayadana waxaa loogu talagalay timaha iyo hadiyaha iyo waxaas in ay ka qurxiso. marka aad ku dhufsato eed sii dhex gasho mid kasta waxa ay leedahay sidii oo kale product sheet ayaad la wadaagaysaa qofka macmiilkaa si uu wax uga fahmo qaabka loo isticmaalayo waxa ay ka kooban tahay. waxaas oo dhan carabka hoostiisa lagu buufinayaa. midiiba waxaad ka qaadanaysaa 8 spray ayaad qaadanaysaa subaxdii ama habeenkii kolba qofka xilliga asaga u fiican. waxay nooga xiga tan oo iyadana essential bliss ah. waxa weyn guushka dumarka isticmaalayeen xilliga ay ku jiraan waqtigooda bisha. barodhagan waxa weyn kii habeenkii kii maalintii ayuu isugu jiraa. inta buu ka kooban yahay. xabadii waxaad iibsanaysaa bogoska yar waa 850 haddaad rabto kii habeenkii haddaad rabto kii maalintii halkanaad ka dooranaysaa. day use wakaas night use-kina wakaas uu ku xigaa. mid kasta waxaa la socda markaa oo ku jira bogoska yar ilaa iyo 10 xabo meelahaas ayaa ku jira oo 12 xabo haddaanan ilaawin xisaabtii tirada inta ku jirtay. dib aynu u laabanana essential bliss marka package-ka waa nooca habeen iyo maalin buu kala leeyahay qofka tuu doono ayuu dooranayaa. waxa inooga xiga ayadana baraankeeni hadda soo biiray cusbaa ee loogu talagalay fabulouska. run ahaantii mid aad looga hadlaya fabulouskan wax kale maaha wax weyn barodhag miisaanka in laysaga dhimo oo qofka maaragtay jirkiisa lifting iyo wax uu siiyo loogu talagalay at the same time loogu talagalay inuu ururka ka bi'iyo ama waxa la stretch marks loo yaqaano liidadka dadku markay ama xaamilo noqdaan ama waxaas oo kale. kanoo kale wuxuu leeyahay cream laba nooca kan iyo kan hoosta. labadaasi waxa weeye jirka ayaad marinaysaa waa like cream oo kale. calooshii dib ay u celinayaan. jirkii maaragtay harag noqdo kor bay u qaadayaan way giijinayaan. badhidii oo kale waxaa loogu talagalay in maaragtay la mariyo oo stretch markska ka bo'o. tanoo kale waxay dhahdeen booty lift bay yidhaahdaan ama enhancement aan dhehe xaggan waxay ku weynaysaa bay dheheen badhida ayay ku weynaysaa. run ahaantii waa barodhag hadda soo baxay la tijaabiyey laga warkeena loo isticmaalay. collagenka waxa weeye isaguna collagen oo siibna ay ku jirto vitamin C plus kani
baruurta gubaya asaguna waxa weeyaan kii baruurta dhimayay ama qof markuu isticmaalo oo isagoo healthy diet isticmaalaya jimicsana sameynaya isticmaalo faadkii ka gubaya jirkiisa. marka barnaamijkan isku wada dhan waxaa qofka loogu talagalay in jirkiisa ururkii stretch markska aan idhaahdee ama dildilaaca ay ka bi'iso qofka markuu miisaanku ka dhaco dildilaacu jirkiisu yeesho haddii lugaha noqoto ama buudiyaha ama kubabka ama caloosha noqoto ama haddii hooyada uur yeelato oo kale after ay beebiga dhasho dildilaac bay caloosha ku yeelataa. taasoo kale inuu bi'iyo caloosha haddii yara go'day oo kale maaragtay kor u qaado oo liftgareeyo xaggii dambe oo kalena kor u qaado baridii oo kale kor u qaado. waxaas dhan baa loogu talagalo barnaamijkan isaga fabulous la dhaho waa barnaamijkii bardhagyada cusbaa ee soo biiray shalay tole deha laga qaaday. kan isaguna waxa weeye fuel factor x run ahaantii waa mid aad iyo aad u muhiima qof kasta inuu ogaado. waxaa loogu talagalay gawaarida in lagu shubto. barodhagani waa barodhaga africa oo dhan kaga qaylisiiyey gaariga shidaalka ku marxinaya weliba tan lagu shubanaya gaariga tan waa tii gaariga lagu dhaqaayay oo gaarigaad ku buufinaysaa way kuu maydhaysaa ayadoo xabadaad helaysaa ayadoo bogas dhan oo isku xidhnaad helaysaa. tanna sidii oo kale fuel factor x haddaba tan yaryari hal marba gaariga lagu shubtaa shidaalkay ku dhaqaalanaysaa gaarigaaga marka shidaalku ka dhamaado ee taangiga uu madho ayaad ku shubaysaa marka ugu horeysa 2 xabad isku raacinaysaa oo yaryar haddaad caagada kaga shubanaysana 20 milli baad isku raacinaysaa. marka koobaad markaad 2 ku shubto marka labaadna 2 ku shubto wixii ka dambeeya hal xaba ayaad ku shubanaysaa gaarigaaga shidaalkii baa kuu dhaqaalaysmaya foostooyinkii waa wanaaba leedahay tii 5 litir ahaa bay leedahay. qof kasta run ahaantii wuxuu isticmaalayaa waxa uu u baahdo ayuu ka isticmaalaya run ahaantii because foostooyinka waxa loogu talagalay dadka warshada haystay waxa lagu shubi karaa gawaarida lagu shubi karaa dawniyaha jananeetarada any combustible engine ama engine kasta oo dhaqaaqa waa lagu shubi karaa wax kasta oo gaariyo dhaqaaqa oo lagu shubi karaa waa solution amaba aan dhahda bahal loogu talagalay in ay waxyaalo badan gaariga ka ilaaliso sidii rastinkii oo kale ka ilaaliso injiinkaaga u fiican tahay fuel economiga u fiican tahay everything u fiican tahay. waxa weeye lubricant bahashani waxaasoo dhan waa lagu shubi karaa gawaarida yaryar gawaarida waaweyn mootooyinka jananeetarada taraagyada waaweyn kuwa beeraha lagu qodo kuwa doogga waxa lagu jaro su-aalaheedii oo dhan halkan ayay ku qoran yihiin. macmiilka waad la wadaagaysaa waxaasna waad u sheegaysaa faa'iidada ay leedahay ilaa bahasha cuntada lagu karsado ee gaasta ah ayaa hadda dadka afrika jooga ay ku shubtaan si ay gaastii ugu dhaqaalowdo ayadana. waxaynu xiga xamaama ayadoo run ahaantii kuma dheeraanayno waa dhar qofka doonaya waa loo sheegaya waa lala wadaagaya wuu iibsanaya run ahaantii waa dhar aad u naciime aad u jilicsan shandada yarna way wataan oo baagag ah. baraankeenan hemworks ayaa run ahaantii aad u tiro badan wuxuu ka hadlaa run ahaantii interconnected systemkeena ayay hemta caawisaa run ahaantii markaynu eegno because waxa weeyaan wax jirkeenu qof kasto bini aadan wuxuu ku dhasho weeyaan receptors wax la yidhaha baynu leenahay. marka CBD-du waxay caawisaa jirkeena waxyaalahaas ka caawisaa waad akhrii doontaa definitionkeedii waxay tahay interconnected system haddaanad hore u maqlin xitaa waad soo ogaan kartaa waad soo baari kartaa. haddii aynu eegno alaabada dul istaagna ay ka kooban tahay brandken hem way tiro badan tahay. waxa caan aad u ah oo aad loo isticmaala CBD-deena dhalooyinka halkan ku yaala ama qurada halkan yaala oo caafimaadka ilaahay dad badan caafimaad usoo geliya run ahaantii ku caafimaaday ku raystay dad xanuun qabay jilba xanuun qabay dad xitaa la dhahay cancer cells baa laydinka helay dad la dhahay thyroid dad la dhahay migraine yani fiidiyoo dhan baa ku jira youtube-ka oo aad arkayso oo testimony oo laga dhiibanayo qof kastaa xanuunka ilaahay kaga daweeyey ama kaga dulqaaday anxiety-skii stresskii isku buuqii wixii oo dhan jilba xanuunkii waxyaalo badan ayay ka caawisay wadnahay u fiicantahay keliyaha u fiicantahay waxyaalo badan buu ilaahay usoo geliyey jirka oo dadka biniaadanka ilaahay ku caafiyey. waxaa kaloo laga sameeyey bacdan yar oo ay ku jiraan xanjooyin yaryar oo la isticmaali karo qofka wax macaan iska doonaya laakiin haddana faa'iido ayay leedahay. waxaa laga sameeyey kariimadii murqaha la marinayay kuwan akhtarka ah waa kuwii murqaha la marinayay relief ayaa la dhahaa laba nooc weeyaan. kuwan kale ee binkiga iyo barbalka in waxa weeyaan kii wejiga loogu talagalay mid waa habeenkii midna waa maalintii ayagana waa la marsanayaa ilaa qaybtan waxa weeyaan qaybta xayawaanka eedii bisaaska la siinayay because jilbahooda ayay caafimaad u leedahay run ahaantii. waxaa kaloo laga sameeyey koofigii isagana oo dabiiciya ayaa laga sameeyey shambooga timiyada bashaambi baa laga sameeyey waxyaalo badan oo tiro badan baa laga sameeyey run ahaantii hem waxa weeyaan aynu soo koobi karna maha kareemkii gacmaha ilaa haddana waa baraan kolba lasii kordhinayo. marka faa'iidadeedu waxa weeyaan in ilaahay dadka caafimaadka isagaa bixiye caafimaad uu ka siiyey dad badan oo isticmaalay kuna raysteen dhakhaatiirtii ay u tegayeen ama ay u ballansanaayeen xitaa ay kaga baaqdeen oo la dhahay ama qaliinkii uma baahnid ama wixii aad u baahnaan lahayd dhakhtarku kaa filaya uma baahnid because of hem ay isticmaaleen. dadka xitaa maaragtay drug addictka ee mukhaadaraadka isticmaala aad bay ugu fiican tahay because jirkoodii systemkoodii ayay saxaysaa dadka isku buuqsan dadka stresska qaba waxyaalo badan bay qofka ka caawisaa. tanina waxa weeyaan high life travel ahaantii
waxa weeyaan qofku mid uu ka helayo travel prepaid ah ayay qaadanayaan dadka doonaya inay iibsadaan. waxa ay ka helayaan markaa discounti hadday hotel karaysanayaan, haddii cruise raacayaan, hadday gaari maaragtay ticket flight goosanayaan, wixii oo dhan discount bay helayaan. discount baa la siinayaa. high life travel qaabka u shaqeysaa wax adag ma aha. qofka maaragtay macmiilka markaad u sheegaysid haddii aad adigu aanad fahansanin xitaa upline-kaaga ayaa kaa caawin kara insha allah. waxa inoogu xiga ayadana halkan ku jirta tan la yidhahda ican iyadu waa digitalka ayay kamid tahay. qaybtan waxa weeyaan qayb loogu talagalay qofka weight loss-kiisa. waxa basically loogu talagalay in la saxo qofka maskaxdiisa hadduu qofku doonayo in uu caafimaadkiisa iyo well-beingkiisa iyo weight loss-kiisa ka shaqeeyo. barnaamijkan uu dhegeysanayo oo iibsanaya. gabadh dhakhtarada ayaa ka dambeysay oo soo saartay barnaamijyada weight loss-ka ayuu qofku la qaadan karaa marka uu shab dhaho oo meeshii aado. barnaamijyadeena weight loss-ka sida fat blaster kitka ama wuxuu la qaadanaya barnaamijkan kale ee maaragtay body melt ayuu la qaadanaya. laakiin waa barnaamij la iibsanayo, nutritionka ka sheekeynaya, jirka ka sheekeynaya, maskax iyo jir ahaanba qofka u caawinaya si uu qofku maaragta u noqdo qof soo jeeda oo waaciya oo noloshiisa wixii uu ka damacsanaa ka gaara. waa barnaamij dhegeysiya oo maaragta aad iibsan karto. marka waa barnaamij inuu kusoo biiray marketplace-keena waqti dhow kusoo biiray. run ahaantii hadduu qofku doonayo inuu sii fahmana waxa uu dib ugu laabanaya macmiilku hadduu doonayo inuu sii fahmo qofkii la soo wadaagay barnaamijkan. hadduu macmiilka markaa u baahan yahay macluumaad dheeraada upline-kiisa ayaa ka caawin kara. instant ageless ayadana waxa weeyaan mid ayadana soo biirto marketplace-ka ka mid ah. waxa weeyaan mid alaabooyin kala duwan ka kooban. waxa ay leedahay ti wejiga la marinayay, indhaha hoostooda la marinayay, timaha madaxa la marinayay, hair snackers mid la dhahay leedahay. tanoo kale indhaha hoostooda la mariya bararkay bi'inaysaa qofka isha hoostiisa. waxa laga yaabaa mararka qaar inay soo kuusnaato oo ay buffiness yeelato. waxaa bararkaasi ka bi'inaysaa. tv-ga ayaa laga daawado laga arkay iyadoo saa loo sameynaya demonstration oo qofkii ishu bararsan tahay isla markiiba ay shiikhayso bararkii ka dejinayso. wejigaa kuwan la marsadaa run ahaantii waa kariimada wejiga. kuwana waxa weeyaan kuwii hair in seconds timaha lagu buufinayay oo isla markaaba timihii soo saaraysa markiiba. waa microfiber weeyaan. marka uu qof timihiisa maydho ee uu qooyo ayuunbay wixii ka ba'aysaa. haddii aynu sii aadno inuu ku dhex dhufano waxaad arki kartaa dadkii isticmaalay sida ay ka dhigtay markay ku buufiyeen isla markiiba qofkan timihiisii way soo bateen. halkan waxa weeyaan meeshii ayaa buuxsamaysa, meeshii bay fillar u noqonaysa buuxinaysa. kalaradii oo kala duwanina waa kuwan oo noocba nooc ah oo qof kasta timi kalarkiisa ayuu ka dooranaya. hadduu timo buniya lahaa, hadduu timo madow lahaa, timuhu noocay doonaan ha noqdaane halkan ayay dhammaantood ku wada yaalaan. run ahaantii waa mido fiican in la wadaago dadka u baahan haddii ay maaragtay matalan kale timuhu ka madheen ama timaha doonaya waxoogaa in ay buuxsadaan marka ay meelaha aadayaan. waxa inoogu xiga instant ageless oo ku xigsiina isaguna baraankeena kale kusoo biiray marketplace-ka waqti dhow isaguna oo ka mid ahaa ilaa iyo bishii May. waxa weeyaan lean java bean. run ahaantii aad baan anba halkan u jecelahay. waa kafeygeenan la isticmaalo oo la cabayo. hal product buu ka kooban yahay. waana weightless coffee, waana energy at the same time. qofku biyo kulul buu ku qasanaya waa cabayaa. waxa weeyaan marka bacdu dhooban yarar baa ku dhex jira boxka 30 xaba ayaa ku jira. qofka hal bil ayay haynayaan. markuu qofku doonayo inuu shab garaysto shab markuu dhaho caadi buu u geenayaa meeshii beejkii kafayga isagoo sharxaya oo ka sheekeynaya waxa uu yahay isticmaalkiisa sa loo isticmaalo waxaas oo dhan iyo waxa uu ka kooban yahay dadka isticmaalay iyo qiimihiisa oo dhan halkaas ayuu qofka ka tusaya. waxaan ku laabanaynaa brand directgeenii ayaan ku laabanayna wax badan inooma hadhin. waxaa inoo hadhan malaya dhowr brand. okay waxa inoogu xiga isagana lean java bean baynu maraynay. Mantra ayaa inoogu xigta oo iyaduna ah brandkeenii Mantra oo ka kooban waxyaalo kala duwan. tani waa essential oilskii. waxa ay ka kooban tahay Mantra barodhagyo kala duwan bay ka kooban tahay oo ay ka mid tahay saliidahan dabiiciga loo yaqaano essential oilska. waxay wataan diffuserkoodii. waxa kale ka kooban tahay bundlekii spa-ga lagu meedhanayay. waxa kale ka kooban tahay Mantra synergy bahalo la dhaho oo topical oo dusha laga marsanayo. tan beauty waxa loogu talagalay qofka madmadowga iyo wrinkleska waxayna ka bi'iso. Mantra tan waxa loogu talagalay CBD CBG ba ku jirto soothing qofka inay u samayso meelaha isgalgalayo kala jirka kala saarto. tanoo kale waxa weyn calm loogu talagalay qofkii relaxation inay siiso. tanna flex ayadana waxa weyn xubnaha uun inay qofkii u kala saarto. tan run ahaantii dadka isticmaalay waxay ku leeyihiin jirkayaga meelo allah lahaan midmadow oo yaryar ama haaro oo kale way naga bi'isay. qaybtani waxa weyn cadaro udgoon run ahaantii oo aad u udgoon oo aan kala dhicin dhammaantood oo 6 nooca. I think inay 5 oo 6 yihiin. mid kasta magac gaar buu leeyahay. cadareedina Mantra scent baa la dhahaa. qaybtana waa qaybtii spa-ga oo iyaduna sii socota run ahaantii markaad eegtid.
marka baraanka mantar wuxuu ka kooban yahay cadaradii essential oilkii iyo qeybtii maaragtay spaagi buu ka kooban yahay qeybteena mantaruhu markaad eegtid baraankaasi dhowr wax buu ka kooban yahay waana prefer baraanka uu kamid yahay tani waxa weeye iyaduna NV waa makeup cusub oo soo biira iyaduna 4 shay bay ka kooban tahay asaan jecelahay 4taasi waxa weeye marka makeupkii la marsanayay gabadhan iskale ee ka dambeysay run ahaantii waxa weeye gabadh in badan ku dhex jirta industriga barodhagideeda waxaa isticmaala dadka celebrityada ama bacaanka ayaa isticmaala run ahaantii waana wax aad loo jecel yahay CEO-geena isticmaasha jana marka isticmaashay ka sheekayso run ahaantii aad baad ula tacajabaysa aad eegtid qaabka uga hadlayso ama qaabka uga sheekeynayso yani easy say u yihiin isticmaalkooda u fudud tahay intood markaaba marsato isla markaaba maaragtay instant inaad wixii ku dhamaysanayso oo sidii makeupka kale aan waqti badani kaaga lumaynin run ahaantii marka taasna waxa weeyaan NV intaasuu ka kooban yahay oo shay burushkoodi yaraana wuu wataa haddii aynu ku noqono brand directorygeeni isaguna waxa weeyaan waxa inoo harsan wax badanaba may hadhin I think 2 brand oo 3 baa inoo hadhay oo snap isaguna run ahaantii haa 3 baa inoo harsanaa oo snap waxa weeyaan brand isaguna soo biiray oo marketplacekeena ka mid ah run ahaantii aad baa loo jecel yahay bahalkan waxa weeyaan gabadhii wiilka sameeyey ee isqaba ee xaaska iskale markay soo saarayeen waxay ka fikirayeen dadku waxyaalaha jirkooda u baahan yahay nafaqa ama fitamiinaad ah ama markay maaragtay daalaan kula hurdadii ama markay jimicsi aadayeen soo waxay soo saareen baakejadan oo dhamayska diran oon biyo lagu qasaynin oo maaragtay afka intoo saa loo tuujiyo oon lagu shubanayo tani waxa weeye multivitamin dhamaystiran oo jirka qofku wuxuu u baahnaa uu ka helayo tani waa tii hurdada sleepkii weeyaan tani waxaa la dhahaa reverse DNA-da qofka ayay saxaysaa jirkiisa qofka u baahan tii kale ee search energy-guna waa tan oo 4 dhadhan ka kooban tii maaragtay ahayd fruit bunchka iyo tu ah bahalkii cafe dhamaysa weeyaan marka tani waa energy search waxa loogu bixiyo waa energy tani waa multivitamin tani waa tii hurdada tani waxa weeyaan qofka DNA-diisa saxaysa jirkiisa saxaysa qofkuna ma aha wax uu qasanayo ama biyo ku qasayo ama meel lagu shubaayo ama waa waxa yaraad bish ka siinaysa afka ku tuujsanaysa weyn ayagoo package oo dhamaystiran oo isla socdana halkan ayay ku jiraan hoose taasna waxa weeyaan oo isna brandkeeni kale ee kusoo biiray marketplacekeena waxa inoogu xigaa blood advent ayaa inoogu xiga iyaduna run ahaantii ah brand cusub oo waqti dhow inoo soo biiray iyaduna oo ah shaahya ka kooban shaahyadan waxa weeyaan waa mid waa detoxkii oo kii la isticmaalayay mid waa kii habeenkii midna waa kii maalintii marka kan qofka doonaya inuu miisaanka iska dhimo 40 xabaa midkiiba ku jira miisaanka markaad iska dhimayso kan oo kale detoxkaad la qaadan kartaa sidii kafeygii oo kale ayaad kan u qaadanaysaa waxyaalo badan oo detoxaa jira qofka aan doonaya detoxkii sprayda afka lagu buufinayay ama detoxkii kiniiniga la liqaayay kan u qaadan kara waa detox qofka shaah kafeyga aan jeclayna subaxdii shaah baa morning tea-gan u qaadan karaa oo energy-na siinayo boost ah ka habeenkii qofka hurdo doonaya kale kan u qaadan karaa marka waa tea-gani baraankani waxa weyn baraan aad u cajiib ah hadda waa shaah kaliyaata dadka aan kafeyga jeclayn ee ku odhanaya kaafiinta ama jirka ay gargariira markaan cabo ama hurdada iga kaxaysa ama whatever reason ay ku diidayaan balaandkan kana u fiican oo ah wax organiga wax dabiici wax natural qofka marka macmiilkaaga hadduu ku dhaho kafeyga aanu ma cabo kanaad u sheeg saxleeda kafeyga ma rabtid no problem shaah baanu haynaa marka qof kasta wixii uu doonayaba meesha yaala wax walba hayo dukaankeena maasha Allah tabaarak Allah waxay nagu xiga keena u dambeeyay oo sheenan tay ah isaguna soo biiray bishiimay wuxuu ka kooban yahay 40 shay tan BLD la dhaho tan recoverka la dhaho iyo CBD da ka kooban yahay run ahaantii waa alaab aad iyo aad u cajiib ah anigu run ahaantii markaan waliba isticmaalay tan BLD da la yiraahdo aad baan tan ula dhacay waxa weeyaan breakfast lunch and dinner ayaa la yiraahdaa wax kale ma aha waxa weeyaan qofka waxay jirkiisa ka caawinaysaa wixii digestive enzymeski ayay siinaysaa cuntadii bay ka burburinaysaa cuntadaynu cunaa badanaa cunto fiican wax laga yaabaa inaan ahayn ama cunto la process gareeyay ama hoteelaad kasoo cuntay caloosha kugu fadhiisato marka BLD-dani aad u fiican tahay waxa weeyaan enzymeska ku jira dheefshiidka caloosha qofka waxay u fududeynayaan inuu qofku wixii isa soo dhaafiyo waxaad arkaysaa iyada oo videoga ku jira wiilkii gabadha iskale kamanigan ee soo saaray ay ku shubayaan budinkaasi kiniiniga intay jabiyaan oo wixiiba biyo sharaab camal noqonayaan yani marka dhigtid taaja baa ku dilaya waayo waxaa loogu talagalay inay cuntada saa u burburiso marka ayadan 40 ka kooban tahay tan recoverka ayadan waxa weeyaan qofku marka uu jimicsado mid uu qaadan karo isticmaali karo iyo CBD da ayadan halka ku jirta oo inagu CBD wayn haynin laakiin CBD kalena ku jirta qofka ta uu doono ayuu ka dooranaya muhiimadda waxa weyn alaabada haynaa way tiro badan tahay waxyaalo badan oo isku mid ah jira hada detoxkii kafeygii CBD كريمدي ميك ابكي waxyaalo badan oo isku mid ah ayaa jira marka macmiilku waa inuu ogaado mid kasta muxuu yahay muxuu taraa ka kale muxuu kaga fiican yahay
faa'iidooyinkooda waa isku wada mid badanaa waxa laga yaabaa qiimuhu keliya ku yara kala duwan yihiin maadaama dukaankeenani Amazon oo kale yahay Amazon marka aad gasho eed wax raadinayso boqol waxoo la mid ah baad heshaa markaasaa la ajligeed inaguna marketplace-keena muhiimadiisa dhimi waxa weeyaan inuu qofku yeesho ikhtiyaar uu kaga xulan karo alaabada noocuu doonayo adigu markaa macmiilkaaga adaa garanaya marka uu alaabta uu doonayo ku weydiiyo ama mashkiladiisa aad xalinaysa hadday tahay miisaan dhimis hadday tahay fitamiin hadday tahay CBD waxay doontaa ha noqotee marka aad qofka u sheegto ee tiraahdo maxaad ka cabanaysaa maxaan kaa caawiya caafimaadkaaga halkee kuu daran ee uu kuu sheego in aad baraanadeeni eegto oo tiraahdo keebaa ugu dhow keebaan ka caawiya ma body melt buu qofkani doonaya inuu miisaanka iska rido ma makeup buu rabaa iyo skin carekii ma spraygii buu rabaa ma fabulouskan uu rabaa oo jirka ma guushka muxuu rabaa ma gaadhigiisu rabaa inuu gaasta u dhaqaaleeyo ma uber buu wataa qofkani adigu in aad problemka macmiilka haysta ee aad xalinayso adigu ogaato weeyaan maadaamaad adigu wixii fahansan tahay marka I hope videogan inuu idin caawiyey insha Allah bidnillaahi kariim oo aad kala fahanteen alaabadeena waxa ay taraan mid kasta markaad kusii dhex dhufato aad sii eegto aad ogaan karto waxa ay tahay wax laga sameeyey waraaqahooda aad akhrin karto xitaa halkan oo kale reviewga aad akhrin karto dadkii reviewga ka dhiibtay halkan aad ka akhrinaysaa wixii makeupkan u taray inta isticmaalayeen dadkan intaasoo sawirba iska soo qaadan qof kasta waa idinka arkaya hadda gabadhaasoo kale waxaan kuri makeupka waa afrikaan marsani cadaankii waa kuwan oo kale anybody waxa weyn all skin types weeyaan makeupkii cadaan kun maha any skin baa loogu talagalay madow cadaan shirarkii bay leeyihiin marka qof kasta oo doonaya waad la talinaysaa waad u sheegaysaa xaleeda product sheet baan leenahay halkaas ayaad ka ogaanaysaa qaabka maaragtay makeupkaaga ama ka ku naasibaya aad ka helaysaa marka intaasaan kusoo koobaya barnaamijkeenan I hope ina maaragtay wax su-aalo ka qabi doonin haddii aad